معقول ميا إن مقالة تيك توك أي جبي أهم مسكح هذا بدلان سيانا كسوك بشالهين ومدي بوحنو هايسانا مركا تيك توك إن أدقارت مرحلة أدويدو دارين كوقتها قد يربينو فراني وخياله سيدي إن نلال برزيخ كجرتو أكهلا تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك waa maxay dhab ahaantii TikTok waa nooc ka mid ah propagandada si xeeladaysan loogu faafiyo maskaxdaada isla markaana loo xakameeyo. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo intee jeer ayaad seexashada ka hor istiri bari waxaan bilaabayaa nolol cusub waxaan sameynayaa inaan nafteyda hagaajiyo sidoo kale waxaan joojinayaa daalacashada muuqaalada habeenkii sidoo kale waxaan bilaabayaa sports inaan ciyaaro misna aan barto xirfado faa'iido ii leh dhammaanteen waan naqaanaa waxa dhaca maalinta xigta markaad kacdo waxaad qaadataa taleefankaaga kadib waxaad furtaa TikTok waxaad tiraahdaa aan daawado 2 kilib oo kaliya markaasaan bilaabayaa maalinteyda 2 kilib oo TikTok 1 ilaa 2 daqiiqo ah ma aan wax weyn laakiin sida xaqiiqda ah markaad madaxaaga kor u qaado waxaad ogaanaysaa in 3 saacadood ay ku dhaafeen. TikTok waa maxay dhab ahaantii TikTok waa nooc ka mid ah propagandada si xeeladaysan loogu faafiyo maskaxdaada isla markaana loo xakameeyo. Xanaankani dawlado iyo shirkado waaweyn ayaa adeegsan jiray qarniyo badan si ay dadka u rumaystaan fikrad gaar ah oo kaliya. Markaad furto TikTok oo aad daawato muuqaal 10 ilbiriqsi oo kaliya maskaxdaada waxay barataa in wax kasta oo dheer ay yihiin kuwa daal ah waxa aad bilaabaysaa in aad ku caajisto wax akhrinta sidoo kalena waxaad weynaysaa fikirkaaga sidoo kale waxaad bilaabaysaa in aad dhibsato daawashada muuqaalada dhaadheer xitaa haddii ay yihiin kuwa waxtar ku leh fikradaas yar ayaa si tartiib ah u dilaysa diiradaada oo marka diiradu kaalinto naftaada iyo noloshaada ayaad burburinaysaa diiradu waa tiirka wax walba iyadoo aan diirad jirin ma jirto waxbarasho ma jirto hal abuurnimo ma jirto go'aan adag marka ay diiradu kaalinto naftaada xakameyn kuma sameyn kartid marka aad naftaada xakameyn weydo xorriyad dhab ah ma haysatid markaas waxaad dareentaa inaad fashilantay sidoo kale waa niyad jabtaa waxaad dareemaysaa in noloshaada aysan lahayn qiimo dad badan ayaa ka cabanaya shaqadooda ama noloshooda adag laakiin ma fahmaan in TikTok uu waqtigooda si bilaash ah u cunayo shaqo kasta waxay bixisaa mushaar TikTokna wuxuu qaataa maskaxdaada waqtigaaga iyo diiradaada iyadoo uusan wax ku tarayn anigu TikTok waan isticmaalaa laakiin si faa'iido leh ayaan u isticmaalaa si aan ugu faafiyo fariin togan si aan dadka u wacyigeliyo anigu aabka waa maamulaa laakiin adiga maamula mise adiga lagu maamulaa adigu ma daawataa dadka iscaynaya ama dadka sameynaya challenges aan qiimo lahayn isweydii maxaad ka faa'iidaa haddii aadan naftaada qiimeynin cid kale kuma qiimeynayso haddii aadan is ixtiraamin cid kale kuguma ixtiraamayso runtii dadka badankood waqtigan hore ayay kaga bixin fiidiyoga maxaa yeelay ma haystaan diirad ay ku dhageystaan wax faa'iido leh laakiin adiga weli waad joogtaa taas macnaheedu waxaad rabtaa isbedel haddaba ha sii sameynin waxa aad maalin kasta sameyn jirtay isbedelku wuxuu yimaadaa marka ficilkaaga isbedelo saaxiibkayga dhabta oo waxa aan kuu sheegayaa xaqiiqo dhab ah qofna ma shaqayn doono adiga bedelkaaga qofna ma seexan doono halkii adiga laga rabay inaad kacdo hooyada iyo aabbaha way ku jeclaan karaan laakiin iyagu ma awoodaan in ay nolol ku dhisaan markaad waqti badan ku dhimso dad aan daawashadooda faa'iido ku lahayn waxaad lumisaa noloshaada teeda kale waqtigaas qiimo ayuu ku leeyahay waxaad ku bixin kartaa inaad wax ku barto ama aad isku dhisto sidoo kale aad ku guursato gabar qiimo leh adigu waad ka qaalisan tahay midda baro in aad noloshaada horumar ku samayso oo walaalkiina maahir bro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh